habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin iyadoo dadweynaha Afghanistan isu diyaarinayaan codbixinta berri ah doorashada baarlamaanka ayaa Qandahar dib looga dhigay muddo 7 ah kadib weerarkii shalay lagu dilay saraakiil sare oo xagga ammaanka ah waxaanu eegi doonaa saameynta arrintani ay keeni karto qodobada kale caawana waxa kamid ah sida ay sheegayaan wararka imanaya Turkiga baarayaasha ayaa waxa ay baarayaan goobo horle oo kayma ah wariyihii Sacuudiga ee la waayay Jamaal Khashoggi wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu sheegay in natiijada baarista si cad ay ula wadaagi doonaan caalamka warbixin ayaanu idinkaga haynaa gaar ah magaalada Garowe oo ka faa'iideysanaysa tamarta qorraxda iyo waliba dabaysha toddobaadkana qaybta tiknoolajiyadda ee Click waxaanu idinkugu haynaa robot boodboodaya sidii dadkii iyo waliba mid aqalka baarlamaanka khudbad u jeedinaya iyo kuwa kaleba kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaynu ku bilaabaynaa dalka Afghanistan oo maalinta Sabtida ee berri ay ka dhici doonaan doorashooyinka baarlamaaniga ee wadankaasi ururka Taliban ayaa uga digay codbixiyaasha in aanay ka qayb qaadan waxa ay ku magacaabeen doorasho shisheeyuhu uu ku qasbayo waa doorashadii saddexaad ee baarlamaani ah ee la qabanayo tan iyo markii xukunka laga tuuray ururka Taliban sanadkii 2001 waxaana dagaalada ay yihiin dhibaatooyinka ugu badan ee wadanka Afghanistan halkana waa goobta ay dabley ka tirsan Talibanku ay ku dileen mas'uuliyiin sare oo dhinaca ammaanka ah shalay sida darteed ayaana doorashooyinka gobolka Qandahar dib markaasi loogu dhigay muddo 7 ah tan iyo markii lagu dhawaaqay doorashooyinka baarlamaaniga ee wadankaasi 10 musharax ayaa la dilay waxa kaloo la beegsaday codbixiyaal Aisha Afrax ayaa inooga waramaysa qasriga Daarul Amaan ama guriga nabadda ayaa isu bedelay astaan dagaal haddase jiilka cusub ayaa quruxdeedii dib u dhis ku sameynaya Najmiyah iyo Nasraan oo waxbarashada loo diiday markay Taalibaanku xukunka hayeen hadda waa injineero dadka Afghanistan banaankeeda jooga way arkaan dhibaatadan ku jirno laakiin waan joogaynaa walaalaheen ayaan garab istaagaynaa si aan dalkeena u dhisano albaabka xiga ciidamada ilaalada ayaa ku hareeraysan jaamacadda Mareykanka ee Afghanistan ardayda sharciga barta ayaa dalkan sharci darrada ay ka jirto dhexdiisa ugu diyaar garoobaya imtixaanaadkooda 2 sano ka hor nabadii ay haysteen waxa ku soo duulay niman dabley ah Iznazi wali waxa ka muuqda calaamadihii dagaalka dhalo ayaa wajigeeda jeexday si fiican ayaan u xasuustaa habeenka aabahay ayaa doonayay inuu aado jaamacadda Dubai laakiin inaan halkan iska joogo ayaan rabay si aan Taalibaanka u tusano inaan ka baqaynin oo ay nagu cabsin karin iyagoo iskuuladeena ku soo duulayo halkan dadku shaqo ayay doonayaan marka uu waaga baryo dhibaatooyin fara badan ayaa ka muuqda wadadan dadka halkan jooga badankood waa mutacallimiin 2 jid ayaa kuu furan ciidanka ku biir dhimo ama dalka isaga bax dhibaatooyinka ba'an ee ka jira wadanka waxaa laga arki karaa isbitaalada Kaabul Maxamed waxaa soo weeraray hogaamiye dagaal lug ayuu ku waayay Cabdilaahi waxaa xabad ku dhuftay booliska Cabdilhaadina wuxuu ku dhaawacmay xabad ay Taalibaanku soo rideen dhammaantood toddobaadkii tagay dhammaantoodna waa 20 jiro sidoo kale Fariid wuxuu ku dhaawacmay qoysas isdagaalayay labada lug ayay xabado uga yaalaan wajigiisa inuu tusana uu ka baqayaa wax isbedel ah ma dhici doona ayuu leeyahay kaliya way ka sii dari doontaa waxaa lagu wada mashquulsan yahay doorashooyinka Sabtida saldhigan booliska waxaa lagu daawanayaa kaamarooyinka Kaabul askar dheeri ah ayaa wadooyinka la geeyay si looga hortago rabshadaha iyo in la qaso codaynta dagaalka Afghanistan ayaa hadda u dhaxeeya xoogagii hore iyo dadweynaha Afghanistan oo doonaya horumar
baarayaasha Turkiga ayaa daba socda raad cusub oo baaritaankooda la xiriira wariyaha la laayahay ee Jamal Khashoggi. Dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in u dhowdahay in la dilay. Waxa uu sheegay haddii caddayn ay soo baxdo in Mr. Khashoggi la dilay kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, ay su'aalo ku saabsan isbahaysiga Mareykanka uu la leeyahay Sacuudiga ay soo bixi doonaan. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. baarayaasha Turkigu waxay ballaariyeen baaritaankooda iyaga oo ku daray dhulka bannaan ee qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ku dhow. Walxaha laga soo qaaday halkaas, guriga qunsulka iyo qunsuliyadda ayaa la baaraya iyadoo la barbar dhigayo hidisidaha Jamal Khashoggi. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu sugayo inuu arko natiijada 3 baaris oo kala duwan oo socda, balse luuqadiisu way sii adkaanaysaa. wariyaasha ayaa weydiiyey waxa uu malaynayo inay tahay cawaaqibka suuragalka ah oo ay Sacuudiga la kulmayaan. hagaag waxay noqon doontaa mid daran, waxaan ula jeedaa wax xun. waxaa jira dareen ah in Trump uu arkay faahfaahinta warbixinno badan oo sirdoon ah, balse weli ma sheegayo cawaaqibka ay leedahay haddii la xaqiijiyo in Mr. Khashoggi ay dileen kooxdii Sacuudiga. Sacuudigu way beeniyeen inay wax ka og yihiin wixii ku dhacay. Maxamed bin Salmaan, oo lagu sharfay geesiga isbeddelka markii uu Maraykanka yimid horraantii sanadkan, ayaa waxaa koray cadaadis daran oo ay tahay in uu sharaxo wixii dhacay, sababta iyo sidii ay u dhaceen. waxaan oo dhan waxay dhibaato ku reebeen siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne Trump ilaa iyo markii uu xukunka qabtay. wuxuu doonayaa in xiriirka uu la leeyahay Sacuudiga aysan saamayn. iyadoo faahfaahin badan ay soo baxayso ayay dad badan isweydiinayaan sida ay u fududaan doonto. markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee caawa. hogaamiyaasha Turkiga, Ruushka, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa kulan madaxeed ka yeelanaya dagaalka Suuriya. afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in afartooda ay ka wada hadlayaan Istanbul ay ku wada hadli doonaan dhamaadka bisha Oktoobar arrinta Suuriya. waxaa la filayaa inay ka wada xaajoodaan tallaabada xigta ee gobolka mucaaradku haysto ee Idlib iyo hanaanka siyaasadeed ee dagaalka Suuriya lagu soo afjari karo. kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa aad u gaabiyey heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano ah. tirada kobaca bishii Juulaay ilaa Sebtembar ayaa ahayd 6.5%, taasi oo ka yar sanadkii hore sida ay saadaalinayaan dhaqaalayahanada. waxaa saameyn ku yeeshay baalida dadaalka lagu doonayay in looga fogaado halista deynta iyo weliba dagaalka ganacsi ee kala dhexeeya Mareykanka. wadaad xag jir ah oo la yiraahdo Anjim Chowdhury ayaa laga sii daayay xabsiga UK dalkan markii muddo 2 sano ka hor la xiray oo markaasi lagu helay inuu taageerayay oo dadka ugu yeerayay kooxda dawladda Islaamiga. waxaana lagu eedeeyay inuu dhiiri gelinayay dad fara badan oo xag jir ah. waxa uu xirnaa kala bar intii lagu xukumay, waxaase inta ka dhiman uu ku dhamaysan doona banaanka, laakiin isaga oo si adag kor loogala socon doono. in ka badan 50 qof ayaa ku dhintay waqooyiga India kadib markii ay tareen uu jiray dad badan oo meel u dhow magaalada Amritsar ah. dadka ayaa isugu yimid wadada tareenka si ay u daawadaan dabaaldega Hinduuga. sarkaal deegaanka ah ayaa BBC-da u sheegay in tiro ka badan 200 oo qof ay ku dhaawacmeen shilkaasi. magaalada Garowe ayaa si weyn waxa ay uga faa'iideysanaysaa korontada laga dhaliyo qoraxda iyo dabaysha. waa maalgashigii ugu horeeyay ee noocan ah ee laga hirgeliyo gobolkaasi. waxaana hadda ay soo saartaa warshadaasi 3.5 megawatt oo koronto ah oo waliba magaalada oo dhan ay ku tiirsan tahay. waxaa la filayaa magaalooyin kale in la gaarsiiyo dabka sidan lagu dhaliyo. Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyay. waa dhul kulul oo qoraxdu ay ku badan tahay deegaanada Soomaalida, waxaana dhibaato ku haya abaaro soo noqnoqday. balse Garowe ayaa isku dayaysa in adceeda iyo dabaysha ay uga faa'iideysato si ka duwan. koronto laga dhaliyay qoraxda iyo dabaysha ay isticmaalaan shacabka magaalada Garowe, inkastoo weli aan matoorada laga wada guurin. warshadanna waxa ay shaqaynaysaa tan iyo horraantii 2016. waxay isticmaashaa 4 qaybood. afarta qaybood waxay u kala qaybsan yihiin matooradii ah oo markii hore kuwii waagi hore lagu shaqayn jiray. system oo solarkii oo qoraxdii oo laga faa'iideysanaya. system kale oo dabayshii oo laga faa'iideysanayo marawaxadihii iyo dabka soo saaraya ah. iyo qayb kale oo kayd ah oo baterigii oo maalinkii markuu dabku soo saarayso uu badan yahay lagu kaydsado.
kabacdi habeenkiina dib looga isticmaalo oo matoorada lagu soo kabo. soolaradan qoraxda dabka ka dhaliya iyo dabeesha waxaa lagu xiray qalab casri ah magaalada ayaana loo sii daayaa tamarta la kaydiyo. waxa isku darsamaya laynkii dabkii matoorada ka yimid oo laynka ku soo halka kaga soo dhacay iyo dabkii soolarka ka yimid oo laynka halka kaga soo dhacay saddexda kale u jeedo calaamad ku sawran tahay turbiinkuna waa saddexdii dabaylood ayaguna dabkooda hadda arkaysa halka waxa weey inta kilowaad ay soo saarayaan frequency-gooda dabka guudaysidaan transformerka ab ka dhigaya deedna ayaguna laynka halkaas kaga darayaan. balse maadaama aysan jirin warshado waaweyn oo korontadan isticmaala dhaqaalaha laga faa'iido waxa ay ku xiran tahay sida xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga ay u adeegsadaan. subaxii dab badan ma qaadato hadda waxa 1.6 megawatt yani 1600 kilowatt laakiin habeenkii dab badanta habeenkii laana inagu industries ma haysano ma jiro warshado ma jiraan waa waxa inoo shaqeeyo makhaayado iyo guryo habeenkii baana magaalada isfaan loo soo jeedaa guryahana ma kala ka talta soo waxay dhan baa wax iska tahay commercial iyo domestic. waa sida habeenkii ayay magaalada Garowe ifaysa sidoo kale tamartan laga dhaliyo qoraxda iyo dabeysha waa arin ay hadda qaramada midoobay u ololeynayso si gaaska hawada wasaqeeya loo yareeyo. Axmed Xaaji Xasan, BBC, Muqdisho. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo caalamkaba. nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. wali waxa inoo soo socdo oo aad qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan teknolojiyada iyo click oo caawa idinku hayno robot boodboodaya sidii dadkii oo kale iyo waliba mid u qudbaynaya baarlamaanka. mar dhow ayaanu isku soo noqon doonaa. wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka balaanin xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn. iyadoo dadweynaha Afghanistan isu diyaarinayaan codbixinta berri ee doorashada baarlamaaniga ayaa Qandahar dib loo dhigay muddo 7 kadib weerarkii shalay lagu dilay saraakiil sare oo xagga ammaanka ah. sida ay sheegayaan wararka imanaya Turkigana baarayaashu waxa ay ka goobayaan meelo kayna wariyihii Sacuudiga ee la waayay Jamal Khashoggi. wasiirkooda arrimaha dibaddana waxa uu sheegay in natiijada baarista ay si cad ula wadaagi doonaan caalamka. sare u kaca heerka badda abaaraha iyo kuleylka nolosha khatarta ku ah waxa ay ka mid yihiin saamaynta ugu weyn ee dunida sii kululaanaysa. dunidu waxa ay qaadatay talaabo markaasi lagu heshiiyey in ay xadeeyaan celceliska heerkulka ilaa 2 darajo balse saynis yahanada cimilada ee qaramada midoobay ayaa ka shiraya haddii ay taasi tahay mid in laga dhigo darajada 1.5 iyo inay ku habboon tahay. Vietnam ayaa ka mid ah dalalka adduunka ugu nugul. Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa. dhulka halkan ee Mekong Delta waa uu degayaa iyada oo sidoo kalena ay baddu kor u soo kacayso dunidana ay sii kululaanayso. ma aha oo kaliya in guryaha ay burburayaan balse beerahana way baaba'ayaan. beeralaydan waxay arkayaan in beerahoodii biyo jiifaan waxayna ka walwal qabaan in aanay weligood biyaha badda ee soo fatahaya isdhimi doonin. isbeddelka cimiladu wuu sii xumaanaya biyuhuna aad bay kor ugu soo kacayaan mana haysano waqti aanu gabyano oo ku xidhno aanu biyaha ku joojino. khatarta jirta waxaa laga wada dareemayaa Mekong Delta oo dhan. magaalada Kanto ayaanu aragnay in gabinadii la xiray kala barna la dhameeyay. guryaha ka dambeeyana daadadka ayaa qaaday. qarniyadii la soo dhaafay ayaa daadadka lagu farxi jiray oo waxa ay keeni jireen carro nafaqo leh. gobolkaasina waxa uu soo saari jiray bariiska ugu badan. laakiin biyaha badda ee soo butaacaya waxay haatan qabsadeen dhulkii oo ay milix miiran ka dhigeen caradii wax laga beerayay. Professor Zon Van Nee oo ah saynisyahan ayaa waxa uu barayaa beeralayda hab fudud oo ay ku ogaan karaan xaddiga milixda ah. intee bay la egyihiin biyaha cusbada leh ee halkan waa cusbo badan. qaybo badan oo ka mid ah Delta ayaa joojiyay beeridda bariiska. ninkan beeralayda ah ayaa hadda waxa uu u wareegay inuu calafka xoolaha beero. baryahan bariiska waa cuntada dadku ku tiirsan yihiin waxaana suuragal ah in la iska badaayo beerashadiisa. khatar ayay ku jiraan wax soo saarka bariiska ayaa khatar ku jira 80% bariiska gobolkan waa la dhoofiyaa
khatar weyn ayay ku tahay dhaqaalaha Vietnam. haddaba sidee arrintani mustaqbalka dadka u saamaynaysaa 3 sannadood ka hor dugsigan waxaa qaaday daadad ka soo fatahay webiga Florence Hillstead oo ah cilmi baare ayaa weydiisay carruurta sida ay xaaladda u arkaan. waxa aan runtii danaynayo dhammaantiin ma xiri kartaan indhihiinna waxaana idinka doonayaa inaad dhab ahaan sawirataan adinkoo jooga xilliga daadadka. Loy oo 10 jir ah ayaa maskaxdiisa ku haya wax cajiib ah. dadku waxa ay dalbanayeen in la caawiyo. Florence ayaa kadib weydiisay carruurta in ay sawiraan daadadka waxa ayna sawireen muuqaalo naxdin leh oo ah guryo biyuhu qaadeen iyo gacmo biyaha dul heehaabaya. rajada ayaa waxa ay tahay in sidan looga wada hadlayo daadadka ay carruurta noqdaan kuwa u diyaar ah in ay la qabsadaan cimilada xumaatay. waxay ku dhex nool yihiin adduun biyo ah taasoo sii kordhaysa uun biyuhuna ma gurayaan. waxay u baahan yihiin inay bartaan sidii ay ula qabsan lahaayeen kasoo kabashaduna waxay runtii u baahan tahay in la dhiso. haddaan ku laabana xeebta waxa socoto shaqo cusub oo lagu xakamaynayo biyaha. saynis yahanada waxa ay moodi jireen in uu jiro xaddi aan dadka waxba yeelayn oo heerkuulka dunidu ku kordhin karo 2 digrii. haddase waxa ay leeyihiin waa in heerkuulka dunida hoos loo dhigo haddii la doonayo in laga baaqsado in khasaare ay soo gaaraan dalalka kan oo kale. bal markana aynu eegno wararka ciyaaraha caawa. tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu waqti dheeraada loo siiyay in uu uga soo jawaabo eedeymaha xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska oo la sheegay in uu hadal xun uu ku yiri camera television luqadda Boortaqiiska kadib markii kooxda Manchester United 3-2 ay uga badisay Newcastle garoonka Old Trafford. markii hore waxa la siiyay ilaa maanta inuu ka soo jawaabo laakiin waxa hadda dib loogu qabtay ilaa maalinta Arbacada ee soo socotay inuu ka jawaabo. ciyaaryahanka difaaca ee Chelsea u ciyaaray Antonio Rudiger ayaanan ka qayb gali doonin ciyaartiisa ugu horeysa ee horyaalka Ingiriiska Brito. dhaawac soo gaaray darteed kooxda ay ishayaan ee Manchester United Jesse Lingard oo isna la filayay ayaana soo kaban doonin dhaawaciisii awgiis. laakiin weeraryahanka West Ham u dheela Marco ayaa la filayaa in uu u safan doono ciyaarta ay la leeyihiin kooxda Tottenham. weliga ma maqashay tartanka orodka dheer ee maraatoonka dadka naafada ah. dalka Kenya ayaa laga sameeyay tartan baaskiilada oo dadka naafada ah. waxa uu ka dhacay magaalada xagga bari ku taala ee Isiolo taasi oo isu keentay qaybaha kala duwan ee naafada bulshada. ololahan waxa looga dan leeyahay in ahmiyada la siiyo dadka naafada ah oo dhaqan ahaan ay u arkaan inay tahay habaar. Ciise Xaaji Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray. inta badan dadka naafada ah ee ka qaybgalaya tartankan waxay ka soo jeedaan qowmiyadaha xoolo dhaqatada ah ee Kenya. hadda waxay isugu soo aruureen xariiqtinta uu tartanka ka bilaabmayo. waxay isugu jiraan rag iyo dumar naafo kala duwan ah. qaarkooda waxay ku dhasheen naafanimada, qaarna dhaawacyo iyo xanuuno ku dhacay ayay ka dhaxleen. Lea Lesila waa 17 jir. lugta ayaa laga jaray kadib markii uu ku dhacay kansar. waxaan halkan u imi in aan Kenyaanka tuso in naafanimada aysan ahayn karti darro. waxaan samayn karnaa waxa dadka kale ay sameeyaan. waxaan u tartami karnaa sida dadka kale. sida tartamayaasha kale, Lesila waxaa ka go'an inay soo afjarto orodka baaskiilka ee lagu tartamaya 24 kiiloomitir. waxayna gacanteeda ku riixaysaa badeelka baaskiilka. waa tartan adag oo ay rabaan inay dhammaystiraan. tartamayaasha guusha ayaa u muuqata halka daawadayaashana ay dhiirigelinayaan. shirkii Afrika ee sanadkii 2016 looga hadlayay dhibaatooyinka haysta naafada qaaradan ka oo ka dhacay Nigeria ayaa lagu sheegay in Kenya ay kaalinta hore kaga jirto dhaqangelinta siyaasadaha looga gogol leeyahay sare u qaadida nolosha dadka naafada ah. walow qabanqaabiyaasha tartankan ay sheegayaan in bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ay dambeeyaan. waxaan odhan karaa in dalkan uu xoogaa horumar ka sameeyay dhinaca, balse ay wax badan u dhiman yihiin. dadka lixaadkoodu kala dhiman yahay ayaa xaalad adag ku soo maray Kenya.
oo xilliyada qaar waxaa loo arki jiray kuwa habaaran. Haweenka umulisooyinka ah ayaa si gaara loogu sheegi jiray inay dilaan carruurta dhalata iyagoo lixaadkoodu kala dhiman yahay. in ka badan 100 qof oo ka mid ah rag iyo dumar oo naafa ayaa isugu soo baxay halkan si ay uga qayb qaataan tartankan. waxay mar hore u sii bareereen qoraxda aadka u kulul haatan sida u jeedaan cimiladu ayaa isbedeshay roob ayaa da'aya. dadkani ayaa waxay doonayaan inay tartankani ku soo bandhigaan in ay yihiin dad wax qabsan kara oo bulshada aan laga yeesi karin. sida Lesila oo kale dadka guuleystay ayaa la siiyay abaalmarino. qabanqaabiyaashana waxay ku rajo weyn yihiin in tartankan uu noqon doono mid caalami ah. ciise xaaji cabdille, BBC, magaalada Isiolo ee waqooyiga dalka Kenya. bal markana qaybta tiknoolajiyadda ee Click ee toddobaadkan waxaan idinkugu haynaa robotyo boodboodaya mid khudbad u jeedinaya baarlamaanka iyo qaar ogaan kara cudurka kansarka. qodobadaas iyo kuwa kaleba waxaa noo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Atlas iyo Humanoid Robot waxa ay soo bandhigeen xirfadaha cusub ee robotkooda. Orodka aan xadka lahayn waa jimicsi cusub waxaa ka mid ah kaboodbood, gidaaro, dhismayaal iyo kaabado dhaadheer. Atlas oo ay samaysay shirkadda tiknoolajiyadda Boston Dynamics waxyaabo badan ayaa u dhiman ka hor inta aanay dadka khibradda leh la tartamin, laakiin way dhowdahay. Biba waxa ay noqotay robotkii ugu horeysay ee ka hadasha baarlamaanka Ingiriiska iyadoo ka jawaabtay su'aalaha siyaasiyiinta ee la xidhiidha daryeelka dadka waaweyn. Robotkan oo ay samaysay jaamacadda Middlesex University waxa la weydiiyey mashruuc artificial ah oo ka yareeya cadaadiska adeegyada daryeelka caafimaadka. waxa loo tumay sacab aan yaala la tumin. waatan robot kale oo isku dayaysa inay wax wanaagsan samayso. cilmi baarayaal ayaa sameeyey skiinbot oo samayn karta inay qiyaaso kala duwan ka qaado diirka dadka. robotkan oo ay sameeyeen kuleejada tiknoolajiyada ee Massachusetts waxay eegaysaa waxyaabaha aan caadiga ahayn oo kansarka diirka jidhku ku jiro. waa wax caadiyan ay dhakhaatiirtu baadho. toddobaadkana roobotyo ayaa ku soo bandhigay dhaqdhaqaaqooda bandhiga roobotyada ee Tokyo. roobotyadan shaqaynaya waxa ay soo bandhigeen xirfadahooda oo ay ka mid tahay inay buuxiyaan marfishkan dukaankaas aan runta ahayn. shirkado tiknoolajiya oo ka badan 90 ayaa soo bandhigay tiknoolajiyadoodii ugu casrisanaa, tan oo looga dan leeyahay inay wax ka dabooli karaan shaqaala yarida ka jirta Jabaan. ugu dambeyntiina haddii aad jeceshahay jalaato inaad ka ag dhawaato 84 gawaarida jalaatada ayaa isugu yimid magaalada Crewe ee wadankan England waxaana ay dhigeen rikoorkii ugu dheeraa ee gawaaridaasi. gawaaridan xilliga kuleelka ayay caan ku yihiin wadooyinka UK. hal mar ayay dhammaantood wada dhaqaaqeen in u dhaxaysay 10 mitir oo kaliya ayayna isku wada jireen. iyadoo dadweynaha Afghanistan isu diyaarinaya codbixinta berri ayaa doorashada baarlamaanka Qandahar dib loo dhigay muddo 7 kadib weerarkii shalay ka dhacay ee dhinaca ammaanka. waa qodobka ugu weynaa ee barnaamijka. xusuusnaa wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxa aad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba maalinta Isniinta waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo habeen wanaagsan.